kulanti wacan waa saaxiibkiin Cusmaan oo mar kale idinla wadaagi doona taariikh kale oo xamaasad leh sida aad mar walba uga barateen page-ka One Liverpool Somali Fans. waxaa idin soo diyaarinaa barnaamijyo aad idin xiisan gelin doona. haddaba ha iloobin inaad like saartid oo aad subscribe dhahdid si aan isula socono mustaqbalka insha Allah. maanta waxaan idin sidaa laacibka u xiran nambarka 9 ee kooxda Liverpool, Roberto Firmino, oo lagu naanayso Bobby Firmino. Firmino waa ciyaaryahan u dhashay Brazil kuna dhashay magaalada Maceió ee u jirta 2500 kiiloomitir caasimadda waddanka Brazil. waxa uu dhashay 2 Oktoobar 1991. Firmino waxa uu kubadda cagta si professional ah ku bilaabay koox lagu magacaabo CRB da'diisu markii ay ahayd 17 sano 2008. waxa uu kubadda ka soo bilaabay daafaca dhexe, defensive midfield ama Soomaalida sida ay u taqaano say. kulankiisii ugu horeeyay waxa uu ku soo galay bedel ciyaar dhex martay CRB iyo Ponte Preta, ciyaartaas oo looga badiyay kooxdiisa 2-1. sanada 2010 Roberto waxa uu suurta gashay in uu fursad ka helo kooxda heerka koowaad ee isla horyaalka Brazil, taas oo keentay goolkiisa koowaad inuu u dhaliyo isla kooxdiisa. isla sanadkaas waxa uu dheelay 36 kulan waxaana uu dhaliyay 8 gool. dabiiqada sanadkii 2010 Roberto waxaa la soo wareegtay koox ka dhisan waddanka Jarmalka oo lagu magacaabo Hoffenheim. kontrakti 5 sano ah ayayna u saxiixday. macalinka kooxda xilligaas hayay ayaa waxa uu saxaafadda u soo bandhigay hadal murtiyeed uu ku ammaanayo Roberto Firmino. waxa uuna yiri, Hoffenheim waxa ay heshay mucjisooyinka ciyaaryahanada ee Brazil. kulankiisii ugu horeeyay ee kooxdiisa Hoffenheim oo lagu soo dhaweeyay guuldaro xilli uu ku soo galay bedel daqiiqadaha markii ay ahayd 75 iyadoo ay la ciyaaraysay kooxda Mainz. goolkiisii ugu horeeyay waxa uu dhaliyay bisha afraad sanadka 2011 kulan ay ka badiyeen kooxda Frankfurt. sanada 2012 waxa uu kooxdiisa u saftay 36 kulan wuxuuna u dhaliyay 7 gool. sanad kadib Firmino oo soo bandhigay kubadda uu hibada u leeyahay, taas oo sabab u noqotay in uu ku guuleysto bilad cusub oo horyaalka Bundesliga waagaas la soo saaray oo lagu magac daray Breaking Through of the Season. Firmino waxa uu noqday gool dhaliyaha afraad ee sanadka 2013. waxa uu xilligaas dhaliyay 14 gool. kooxda Hoffenheim waxa ay ku dhameysan jirtay horyaalka dabiiqadiisa kaalinta 16aad, balse sanadkaas waxa ay la soo baxday xilli ciyaareed aad u qurux badnaa iyadoo ay la dhaceen taageerayaasha horyaalka Bundesliga. ciyaaryahanka Roberto Firmino ayaa soo bandhigay xilli ciyaareed aad u qanciyay bulshada taageerta kooxda Hoffenheim. 2015 Roberto Firmino waxa uu suurta gashay riyadiisii ahayd in uu mar qura ka dheelo horyaalka Ingiriiska. Liverpool waxa ay kula soo wareegtay qiimo dhan 29 milyan weeraryahanka u dhashay Brazil Roberto Firmino. Roberto Firmino goolkiisii ugu horeeyay waxa uu ka dhaliyay Manchester City xilli ay Liverpool ku garaacday 4-1. Liverpool waxa ka tagay macallinkii hore ee Brendan Rodgers, balse waxa ay la soo wareegtay macallin Klopp oo xilligaas aad u yaqaanay Roberto Firmino horyaalka Bundesliga. macallin Klopp aad ayuu hibada Roberto Firmino ula dhacsanaa iyo booska uu ugu talagalay. Liverpool waxa ku sugnaa 4 striker ama 4 xidig oo ka ciyaara lambarka 9. waa Daniel Sturridge, Christian Benteke, Origi iyo Roberto Firmino. Firmino waxa uu 2016 Liverpool ku dhameystay isagoo ah top scorer kooxda, gool dhaliyaha ugu badan. Firmino waa ciyaaryahan weeraryahan ah, waxa uuna dheeli karaa 4 ciyaaryahan ee weerarka ah position walba ay ka dheelaan. Firmino waxa lagu sheegaa
ama saxaafadda Ingiriisku ay ku amaanaan in uu leeyahay vision, ball control, skillful dribbler, creative, goal scoring machine, defensive work rate iyo Liverpool most important player. haddii Liverpool uu ka maqan yahay Roberto Firmino, waxaa hubaal ah in Liverpool ay hal lug leedahay. Liverpool waxa uu u saftay Roberto Firmino 137 kulan, wuxuuna u dhaliyay 48 gool. haddaba haddii aad ka heshay taariikhaha aan idiin soo gudbino oo barnaamijkan, fadlan like sar oo kanaalkan subscribe